horumarkii guushu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu badan uguna muhiimsan ee uu haqal taago aadamuhu. Inaad noqoto qof horumar ka sameeyo noloshiisa, ku tiirsan naftiisa, gacan qabta dadka ku hareeraysan, sidoo kale wax ku soo kordhiya bulshada. waa aryaan ka wada simanaha dhammaanteen halkankii loolankan ku wada jirno, laakiin nasiib daro 10% aadamuhu ayaa gaaro noloshu horumarkii ay ku taamayeen, halka inta soo hartay ay ku fashilmeen halganka nolosha. haddaba maxaa dib u celiyey? maxay tahay sababta? 10 wax oo u sabab noqday dib u dhaca nolosha. magacaygu waa Cabbaas Mustaf, halkan waa Rumaan Media. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. intaan muuqaalka u guda gelin, like saar fiidiyowga sidoo YouTube dad badan u gaarsiiyo. aad mahadsantihiin. joojina daacada salaada iyo guud ahaan cibaadada Alle. maalin kasta 5 waqti waxaan maqalnaa oo kale guusha. haddii aadan ka jawaabin isla markii 5 salaadood waqtigooda aadan tukanin, ma jiro waqti kale aad maareen karto. markastana waxaad ahaanaysaa mid mashquul ah, haddana aan wax u qabsoonin. jooji inaad naftaada been u sheegto, qiyaaliso, aad ku maaweeliso. noloshu waxay horumartaa markaad fursadaha ka faa'iidaysato. fursadaha ugu horeeya uguna daran la qaadan karo waa inaad daacad u noqotaa mar walba oo aan u sheegto hadal ka fog riyo iyo malawaal. jooji inaad waqti ku lumiso asxaabtaada xun. noloshu way ka gaaban tahay inaad waqti ku lumiso dad farxadda kaa qaato noloshaada aan wax ku soo kordhinin. kala garo nooca asxaabta aad leedahay. saaxiibka xun keliya gadaal ayuu ku dhigaa, halka kan fiican oo sabab u noqdo alla ka soko kow guusha, kuna dhiirigeliyo qaadida tobta toosan. inaad ka cararto ama aad ka gambato ay tahay sababaha soo dejiyey guuldarrada. wajah dhibaatada ma ahan wax sahlan. ma jirto qof adduun dhibla'aan ah. xaqiiqda waxaan la soo maray murugo, kadeed, kufid iyo dhaawac. noloshu ayaa sidaas ah. waxaa la rabaa in la wajaho, la aqbalo, lana feejignaado, lana xaqiijiyo. tani waa waxa kaa dhigay qofka aad rabto inaad noqoto. jooji inaad ceebaha dadka kale aad raadso, kadibna aad samayso cambaareen, cay iyo cilad sheegid joogto ah. xaqiiqdii tani waxay kaa hor istaagaysaa inaad dantaada mashquul ku noqoto, horumarna aad samayso. xaasinimadu waa inaad xisaabiso waxyaabaha qofka kale eeba ku manaystay, aadna uga xumaato inta aad u taada xisaabin lahayd. ka fogow xaasinimada, kana dheeraaw eegidda dadka kale, kana dhigo naftaada mashquulka kaaga koowaad. waa huwaal inaad waqti u heli doonin eegidda dadka kale. jooji caajiska, wahsiga iyo inaad iska fadhido naftaada oo aad siiso firaaqo badan oo ay iskaga fadhiso ku fikirto ama hawl kuu taal aad ka wahsato. waxay kuu horseedaa burbur iyo fasahaad. ku mashquul naftaada shaqo, wax akhris iyo saamayn wax faa'iido leh. jooji inaad ka cabsato inaad qalad samayso. inaad wax samayso oo qalad waxay 10 jeer ka fiican tahay inaad wax samaynin. guushu waxay leedahay fashil badan. fashil kastana waxaa hubaal ah inuu ku gaarsiiyo guusha aad rabtay ugu dambeyn. jooji isku day inaad farxad iibsato ama aad dadka kale ka raadiso. haddii aadan ku faraxsanin qofka aad tahay iyo waxaad haysato, ma jiro cid kale oo farxad ku siin karto iyo waxyaabo qaali ah oo farxad kuu keeni karo. waa inaad degnaan iyo qanaaco ku abuurtaa naftaada. waxaa hubaal ah markaa kadib inaad adigu siin karto farxad. jooji inaad ku noolaato xasuus. wixii aad soo martay waa wax hore u dhacay, waa taariikh weligood ma soo noqonayaan. walwalka iyo xasuustu waxay kaa qaadayaan farxadda maanta. ilow wixii hore, dibna u bilaaw nolol cusub oo ay u tahay guul saldhig, shaqaduna ay u tahay derbi. waa hubaal inaad dhaagaha ku arki doontid isbeddel aad rumaysan doonin ugu dambeyn. ogow daawade in waddada guusha ay tahay waddo aad u dheer, u baahan dhabar adeeg iyo dulqaad. qadxaha yaalo waddadaas aad ku dhaafi kartid qorshe iyo lacag oo keliya. haddaba daawade, haddii uu barnaamijkan ku qanciyay, fadlan like saar. haddii aad ku cusub tahay haweenta Rumaan Media, ku soo biir oo subscribe saar. share gareey si asxaabtaada kale ugu faa'iidaystaan barnaamijkan. waad mahadsantihiin.